sidaa daraadeed inaad hore u quusato oo aad iskaga dayso wixii aad akhriyeysay waxay ka hor istaagi kartaa inaad naftaada wax walba barto. Ma garanayo si aan u bilaabo. Marka uu qofku rabo inuu wax isbaro waxa laga yaabaa inay caqabad ku noqoto oo uu garan waayo meel uu ka bilaababa. Talaabooyinkan soo socda waxay ka caawin doonaan inaad barato wax kasta oo adag adigoon garanayn si aad u bilowdo iyo meel aad ka bilowdo toona. ka soo qaad inaad rabto inaad barato computer programming-ka. Talaabada ugu horeysa ee ay tahay inaad samaysaa waa inaad Google-ka weydiiso how to code computer programs. intaa kadibna akhri 10 page ee ugu horeeya ee ku soo baxa. Kadib markaad dhamayso akhrintooda waxaad ogaan doontaa inaad baratay wuxuu yahay programming language-ka iyo sidoo kale languages-ka ugu caansan ee programming-ka. Marka labaad waa inaad si gaar ah u sii baadhaa oo aad ogaataa mid ka mid ah programming language-ka ugu caansan ee aad hore u soo aragtay. Tusaale ahaan programming language-ka loo yaqaan Visual Basic. Mowduuc kasta oo aad ka akhrido Visual Basic-ga waxa laga yaabaa inaad ka fahanto 10% ilaa 20%. Maalmo kadib markaad sii wada akhrintana waxa laga yaabaa inaad fahanto ereyo badan oo la xiriira mowduucan kuwaas oo ku sii fududeynaya fahanka. sida aad arkayso marba marka ka dambaysa waad sii dhexgalaysaa aqoon badan oo u sii yeelanaysa mowduuca. dhowr toddobaad kadib waxaad sarki doontaa adigoo aqoon badan u yeeshay khabiirno ku noqday programming language-ki. sida aad arkayso waxaad ka soo bilowday 0 haddana waxaad noqotay khabiir. weligaa ha dhayalsan haddii aad wax akhrido oo aad waxa ka fahanto 3% ama 4%. waa inaad ogaataa in marka ku xiga aad sii fahmi doonto percentage inta ka sii badan. guusha iyo inaad naftaada wax barto. haddii aad rabto inaad guul gaadho nolosha waa inaad meel walba ka ciyaari kartaa. waa inaad